wakaalada wararka ee Reuters oo xiganaysa wakaalada wararka ee Suuriya ee Sana ayaa soo bandhigtay faahfaahin wadahadalada Suuriya iyo Israa'iil ay shalay ku yeesheen dalka Jordan. Suuriya waxa ay wadahadaladan u dirtay wafdi sare uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda isla markaana ay ku jireen madaxda sirdoonka guud iyo sirdoonka militariga iyadoo Mareykanka uu dhexdhexaadinayay labada dhinac. Reuters waxa ay warisay in wadahadaladan diiradda saareen dejinta xiisadda joojinta duqeymaha iyo xariga iyo beegsiga Israa'iil ka wada Suuriya iyo in dib loo bilaabo wadahadalada u dhaxeeya labada dhinac. Suuriya waxa ay carabka ku adkaysay in heshiis kasta uu ixtiraamayo madax-bannaanideeda, midnimadeeda dhuleed, xaq siinaya in ay dib u dhisato ciidankeeda iyo in ay si qoto dheer xulafadeeda ula wadaagto waxyaabaha iyada ay damacsan tahay ayay ku soo bandhigtay barnaamijka wadahadalada ee u dhaxeeya Israa'iil iyo Suuriya. Dhinaca kale, Dimashq waxa ay ku nuuxnuuxsatay mar kale ama ay xaqiijisay in buuraleyda Golan Heights ee la haystay ay yihiin dhul Suuriyaana, iyada oo sheegtay in mudnaanta degdega ahi tahay in ciidamada Israa'iil ay dib ugu laabtaan khadadkii ay joogeen ka hor 8 bishii December 2024 iyo in si buuxda loo dhaqan geliyo heshiiskii kala qaadista ciidamada ee 1974. dhinaca kale, wakaalada wararka AFP ayaa sheegtay in wafdiga sare ee Israa'iil ka socday ee wadahadalada la yeeshay Suuriya uu hogaaminayay madaxa hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad Rahman Gofman, iyadoo warbixinta AFP lagu sheegay qodobada laga hadlay in ay qayb ka ahayd dadaalada lagu dejinayo xiisadda u dhaxaysa Israa'iil iyo Turkiga iyo sidii looga hortagi lahaa in loolan uu ka bilowdo dhulweynaha Suuriya. wadahadaladan waxa ay ka dhasheen markii Israa'iil ay dib u soo celisay weerarada ay ka fulinayso gudaha Suuriya, iyadoo Israa'iil ay Khamiistii toddobaadkii hore duqeymo ka fulisay saldhigga diyaaradaha Abu Duhur ee waqooyi galbeed Idlib. Markaasna waxay ujeedada weerarkan ku sheegtay Israa'iil in laga hortagayo in isku dayga Turkiga uu agab military iyo ciidamo ku geynayo saldhiggaas. hase yeeshee Suuriya iyo Turkiga labaduba way beeniyeen arrintaas, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Suuriya Asad ninka lagu magacaabo uu u sheegay warbaahinta The Axios in saraakiil military oo Turki ah ay goobta booqdeen oo kaliya iyada oo qayb ka ah tababar iyo iskaashi military oo ballaaran. hase yeeshee waxa uu beeniyay in Turkiga uu halkaas ka dhisayo ciidan ama saldhig military, isaga oo sheegay in xarunta inta badan ay ahayd mid maran.